إلهي باوحو لي ومن أعرض عن ذكري أنا حسكي عدي كجيسته فإن له معيشة ضنكا waxaynu salaad iyo cibaadiyo wanaag uga tagnay waxaynu islaahay wax kororsada ilaahayna wuxuu leeyahay nolol cidhiidhiyaan gelin aakhirana waxaad iman doontaa baa ilaahay leeyahay adigoo indhala aan waxba arkaynin qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira ilaahu maxaad ii soo xaadirsay anigoo indhoola ah waa indha qabay adduunka marka joogee qaala kadalika aatadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa jidka siraad baad adoo indhala isku soo maqiiqi awalba jid khatar u ahaa bal adoo indhalaana ku darsado qiyaas waxaa la yidhaahdaa aayaadkaygaa kuu yimi dabeetana waad ka tagta maanta adna waa lagaa tegay baa la yidhi waa lagu ilaabi ilaahay wuxuuna leeyay waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan gadaqa linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada hadday ku toosnaadaan baa ilaahay leeyahay jidka rabbi hadday ku toosnaan lahaayeen waxaanu ka waraabin lahayn baa ilaahay leeyahay biyo badan oo yacni badhaadh iyo barwaaqaanu ku noolaan lahay roob iyo abaar iyo mushkilada waxaynugu itixaamay toosnaantii baa laynaga waayay haddaad toosnaan lahaydeen baa ilaahay leeyahay waa laydin badhaadhayn lahaa biyaha waa ka dhargi lahaydeen laakiin adduunina mar kastaba imtixaan yaha haddana alla waxaynu noo sheegay marka layna dhargiyana ilaahay wuxuu yihi linaftinahum fiih isaga laftiisu waa imtixaan kale inta badan bini aadamka muslimka ahay imtixaanka dhibta ah wuu ku toobad keenaa faqrigiisa u muuqda marka dhibtu ka qabsato yaa rabbidaa badata dheragta si rabbiba waa la ilaabaa inta badan labada imtixaanka dheragta khatarsan imtixaanka dheragta kibir baa bilaabma iyo qooq iyo balacab iyo kibir oo dhan baa bilaabma soomaalidana waa taqaaneenoo xataa colaadahooda iyo dagaaladoodu markay abaartu dhacdo way isu nasan jireen yaa allah bay odhan jireen marka gugu u da-ana rabshadaa bay bilaabi jireen ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada ninkii ilaahay xuskiisa ka jeesta waxaa la marin oo la gelin cadaab adag fuuritaankiisu ayuha alaxiba dadka badh baa acmaal saalixa sameeya dabeetana istus iyo ismaqashii iyo macaasi iyo kabaa'ir ku buriya qaar baa waddada saxaa haya kadibna raadkoodii dib u raacuno munaafaqnimo iyo ridda ku dhaca idan ayuha alaxiba nabigu calayhi salaatu wasalaam duul buu tilmaamay intay camal wanaagsan sameeyaan camalka ahlujanna siday u wadaan marka dambun dib uga noqonayo camalka ahlu naarka samaynaya oo naarta lagu tuuri doono dadka badhba haddaad tidhahda war ilaahay waa gafuuru raxiim la soo taagay in sha allah ilaahay de waa gafuuru raxiim waxay u badan tahay dadku intuu wuxuu doono iska sameeyo wuxuu kale de inagu muslimiin baynu nahay leen garantii buu iska sitaa ah inaanu isagoo cadaab galaynin inagu ileen muslim baynu nahay maba xumo intaad xumo samaysay haddii aad ilaahay xasuusato toobad keentay ilaahay wuxuu leeyahy wan yaatihim caradun mithlu yaakuduuh haddii mar labaad xaaraanta ay soo marto haddana waa samaynayaan baa ilahay yihi subxana wa tacaala oo waa maxay qofku hadduu xumo intuu sameeyey toobad keeno tooba nasuuxa toobad keena la geray ilahay waa u dambi dhaaf laakiin kani intuu wuxuu doono sameeyaa buu leeyahy insha allah ilaahay baa inoo dambi dhaafaya damba kama leh nabi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doonta wakti yusbixu arajulu mu'mina ninku ay dhici doonto inuu waa baristo isagoo mu'mina wa yumsi kaafira uu galabaysan doono isagoo kaafira galinka hore waa mu'min galinka dambena waa gaal cajab galinka hore waa mu'min oo ama salaad buu tukaday ama galinka dambena acmaal lagu gaaloobayo wadaa يعني توصنان ضدكني ملها ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا ووابر سنة يسوى قال هذا يعني وام حي إسلام لماذا أنا قوق منانين قال لماذا إسلام لماذا يقول رح صعدها يبيع دينه بعرض من الدنيا ما حكوا كلفي دين تيسكو قطنا يرى الدنيا أبو النبي عليه الصلاة والسلام دين تيسي أيكو قطنا يا محي الدنيا إلهي وحلي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
faida hum mubsiruun kuwa alla ka cabsiga iyo qumanaanta lagu yaqaano waxaa arrinkoodu yahay haddii daa'if min ashaytaan mid socdoo shaytaani hadduu soo maro khawaatir shaytaaniya waxaan fiicnaynaba hadday ku soo dhacaan tadakaruu ilaahay bay xasuustaan faida hum mubsiruun baa ilahay yidhi sawaaba kuwii wax arkaya nabi maxamed baa wuxuu leeyahy ninka hamigiisa hami qura ka dhigo hamiga aakhire ka dhiga ilaahay noloshu u ururiya ninka hamigiisa hami adduunye ka dhigo adduun iyo xoogsi iyo shaqe iyo halkaa uun ku ururiya kaas buu nabigu yihi faraqa allahu shamlah ilaahay baa ka kala daadiya wajacala faqrahu bayna caynay indhahana faqri baa loo saaraa waa ka kala qubata uno indhahana faqri baa u saaran walam yu'tihi min addunya ila ma kutiba lah adduunna kama helo intii loo qoray mooyaane wax kale ma helo ninkii aakhire hamigiisa ka dhigana ilaahay adduunkiisana waa u ururiya man jacala alhumuuma haman waaxida hama almacaad kafaahu allahu saa'ira humuumih ninka hamigiisa hami aakhire ka dhiga ilaahay baa humuumta kale kaga filaada ninkii humuumta adduunya isku tiro badiyaana ilaahayna waa ku sii daaya dooxooyinka adduunyo miduu doontaba naftu ha kaga baxdee siduu u xiimayo unbay mid naftu kaga bixi doontaa haddaba ayuha alaxiba qof kastoo mu'mina oo dunida jooga umniyaadkiisa waxa uu rajaynaya laba shay baa ka mid ah cimri dheer iyo camal wanaagsan baynu jecelnahay qofna ma jecla in la yidhaahdo nafta hadda ha lagaa qabto qof waliba in la ziyaadiyo bahashaasi oo aan hore loogu imanin buu jecelyay isla markaa qof waliba wuxuu jecelaya camalkiisu inuu maxay waxaanuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam khayru الnaasi man طaala cumruhu waxasuna camaluh xadiiska tirmidi sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamay dadka waxa u khayr badan ninka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado haddaba ayuha alxiba garan maysid cimrigaagu inuu dheeraanayo inuu gaaban garan maysad khaatimadaadu waxay noqon doonto laakiin haddaa waxaad garanaysaa inaad jidkaa iska saaraatid oo ku toosnaatid lacalla adigoo qumanuunin mar naftu kaa baxde lacalla mucawiqaadka waxyaabaha dadka jidka weydaarayaana waa tiro badan yihin nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalmaa dambeeya ayaamu sabriga la yidhaahdo diinta qofka haystaa uu kontan idinka idinla mida la ajar yahay baa la yidhi waxaanu ku tilmaamayaa sidii nin dhuxul daba haystoo kale u ekaan doonaa yani waxaa looga dan leeyay dhuxusha daba la sheegay waxa weeyaan tacab iyo feejignaan tiro badan bay u baahantay ilaahayna qur-aanka wuxuu inagu leeyahay faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh waryaadhan xagga rabbi u toosnaada faاstaqiimuu ilayh wastakfiruuh wixii dembi idinka dhacana ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista haddaba ayuha alaxiba nebi maxamed waxaa laga sheegay calayhi الsalaatu wasalaam inuu yidhaahdo shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla اlmashiib wakti ciro anigoo aan gaadhin timan ciro aan badnayn baa nebiga ku yaallay laakiin nebigu wuxuu leeyahay waxoogaaga kanna waxa iga soo saaray waxa i cireeyey huud iyo walaaladeed kuwaas baa i cireeyey buu nebigu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam qur-aanka uu sheegayaa qiyaame iyo waxa dambeeyaa u badan wuxuu ka warramayo waxa dambeeya aakhiro dee waa maalinta ilaahay ku tilmaamay wildaanku kuwa dhashay inay ciroobayaan shayban inay noqonayaan nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo inala hadlayo o inoo talinaya xadiis saxiix wuxuu ku tilmaamaya istaqiimu walan tuxsuu toosnaada mana dhammaynaysaan buu nebigu leeyahay yacni ma awoodaan inaa aydan in yarna weecweecan laakiin toosnaada waaclamuu waxaa ogaataan ana khayra acmaalikum الصلاة أعماشينا waxa ugu fiican camal la sameeyo bacda tawxiid salaad baa ugu fiican buu nebigu leeyahay hadday salaadi kaa dayacanto diini kaa dayacantay ogsanow istiqaamo waad ka fog tahay hadday salaadiba kaa dayacanto istiqaamo iyo adiga in dheer baa idin dhaxaysa aayaadkii uu nebigu lahaa suuradduu lahaa way gaboojisaynaa waxyaabuu ku tilmaamaya waxaa ka mid a ilaahay subxaanaه wa tacaala
فاستقم كما أمرت ومن تاب مع محاكو جري وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أي كما يدعي وحاصة ميسان صلاة بوفي عن رب أي النبي وليه ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ويسنا مرة ورطوما إلى ليقف مؤمن مويان يعني إسلام لماذا وحيابا وفي عن وحكم ده إنا ويسادو كاتشب هذا كاتشب تينا ديبو ويسيسات صول بهداد ويسيسات صول بهداد قشينا تسوي ويسيسات إن الطاهر هاتا دم النبي يقول حنوت الماما يا استقيموا ولن تحصوا توصنادا مرة ما ينسى حديث اللي بعده البخاري مسلم وكويا له وحنا النبي يقول سددوا وقاربوا وأبشروا سددوا السداد وتوصنان تلفتيدي أما إصابة وقاربوا المقاربة القصد مثلا مركا نكتة ميسو نكتة كسلامة تقانين رصاص أما ورن مركا وحلا وضع اللي شامة يلي نكتة ميو حين سمينا ميلبا علامة ير لينو دقا ما وحبالا دقا تدكو دبو توقتا لكن مستلي وحي أبادان تهي dhibicda santarka qof iyo laba bay ugu dhacaysaa hadayga xataa ku ugu dhacdo kan labaad waxa laga yaabaa inaad dhinaciisa ku dhufato nabigu wuxuu leeyahay war waxa sameeysan dhugtankaasi sadidu marka hore ku day inaad halka toosan la heshid xagga haysaga tuurin warag ee meeshii lagu dhugtamay la eego ku dhaweena xataa hadaad santarka la weydo maxay duleedkeeda hareeraheeda ku dhacdo هذا صدا يشام بنبغولي ده بشاريستنا مركزو نبغو حلي واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدا عمله وقادنا أننا عمل كيسونا نجنة يعني الجنة إلهي وكقال سنتي حقا كيرين سمين الجنة إلهي وكوين الدنيا وعشرة أمثالها جهنميين كوا وضم بيا جنة صاقلة أيها وحيلين محي أدوك يتبن لابكي حق هررقي كقلي مركا محيلين عماش هالشقي سنوى محي لحدا سنة كنت سنة أدو حقا ودي إذا وحقوا يماها لكن سبب بيو نقطة صحابة مركا يدهدين ولا أنت يا رسول الله وحتى أدوك عمل كاقو نبيانو جنة قوني قال ولا أنا أبو نبي إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة إلهي إنه نحرسي سيقول ضبوله ودمي جاي نافو موياني أنيقنا ما حتى عمل كيقو مقوي واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل لكن وحي أكسونات أبو نبي إلهي أكتيس عمل وحل لو قلتش عليه كوة اللي تشوكتيه استمرارية استقامة ثبات كوحي كسقمة أي إلهي أكتيس اللي قلتش عليه هبير هذا أعماش عدوين يشوكتا النقط